Ethiopia waxay bilowday barnaamij loogu magac daray Digital Ethiopia oo qorshihiisu yahay 2025 ilaa 2030. Waxaanu soo bilaabmay 2020 ilaa 2025 muddo 5 sano oo istiraatiijiyad weyn loo jeexay gaar ahaan xisbiga barwaaqo uu jeexay barnaamijkan Digital Ethiopia. Dabcan waxaa laga gaaray guulo waaweyn. Guulahaas waxaa ka mid ah National ID-ga ama aqoonsiga qaranka waxa loo yaqaano. Waqti xaadirkan aqoonsiga qaranka waxaa haysta oo diiwaan gashan 30 milyan oo qof. 30 milyan oo qof oo ka kooban guud ahaan shacbi weynaha waddanka Ethiopia. Waxa kale oo isagna barbar socday barnaamijyo kala duwan oo adeegyada dawladda digital looga dhigayo. Waxa ka mid ah dhanka lacagaha oo qorshe weyn loo qaatay taasoo dabcan platformka ugu weyn ee dadku ay isticmaalaan uu yahay Telebir oo isticmaalada ilaa 52 milyan oo qof. Haddaba dawladdu weli waxay ku taagan tahay wadadeedii ahayd in barnaamijka digitalka la dardargeliyo 2030 marka la gaarina dabcan Ethiopia guulo waaweyn ay ka soo hayso. dabcan barnaamijka digitalku wuxuu ka mid yahay shanta istiraatiijiyadda ugu waaweyn ee waddanka lagu hogaamiyo ee xisbiga barwaaqo ka mid ah initiative-yadiisa waddanka ku hirgeliyo. Waqti xaadirkan haddaba waxaa soo baxay caawa war cusub oo ku saabsan sidii beeraleyda waddanka Ethiopia barnaamijka digitalka la isugu xidhi lahaa oo National ID-ga ama aqoonsiga qaranka ay u qaadan lahayn beeraleyda waddanka Ethiopia. Gobolka bartamaha waddanka Ethiopia ku yaala ayaa si tijaabo looga bilaabay waxaana lagu magacaabay magaaladaas Butajira iyadoo la bilaabay dabcan olole diiwaangelin ah oo dadka loogu wacyigelinayo sidii ay u qaadan lahayn digitalka ID-ga amaba aqoonsiga qaranka waxa loo yaqaano. dabcan barnaamijkan waxa uu diiradda saari doonaa in si fudud loo gaarsiiyo dadka beeraleyda taas oo sahlaysa helitaanka adeegyada maaliyadeed gaar ahaan amaahda. Saan la socono waddanka Ethiopia dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada caqabadaha ugu waaweyn ee ka haysta wax soo saarkooda inay kor u qaadaan waxa ka mid ah dhanka maaliyadda. maadaama tusaale deegaanka Soomaalida kala hadaan soo qaano dadku wax xoolo dhaqato isla markaana damaanada bangiyada uga baahan yihiin dadka xoolo dhaqatada in ay dhigaan maadaama xoolo leeyihiin way adkay tani. beeraleyda oo kaliya ayaa xoog la saari jiray balse fursadahan hadda imanayay waa kuwa ka saacid doona qofka geel leh ama lo'da leh in isaguna markiisa oo ay soo gaadho in isaguna uu deymaha si fudud u ku heli karo. haddaba waqti xaadirkan waxa xoog la saaraya waxa weeye waa dhanka beeraleyda. waxaana dabcan nidaamka ama National ID-gan waxa la qorsheynayaa in macluumaadka maareynta dhulka ilaa iyo haatan 516 degmo oo waddanka Ethiopia ku yaala la diiwaangeliyay isla markaana la xereeyay ama xogtooda lagu keediyay 32 milyan oo beerood kuwaasoo dabcan dadka iska leh la siinayo lahaanshihii iyo waxyaabo noocaas. soo la socono waddanka Ethiopia goobaha la isku qabsado waxa ka mid ah dhulka kale ka mid ah sida deegaanka Soomaalida oo kale meelaha badan la isku qabsado dhulka ka mid ah hadhow tole laakiin markuu deegaankana yimaado ee cilmiga beeraha iyo alaabtan loo adeegsado tan marka waxa meesha ka saari doontaa maartay in isqab qabsiga waxa soo kale meesha laga saaro. haddaba waxa la qorsheynayaa in muddo 3 bilood gudahooda 12 milyan oo qof oo beeraley loo shaqeeyo lagana dhigo isticmaalayaasha barnaamijkan digitalka ama aqoonsiga qaranka oo la rabo in la gaarsiiyo 100%. diyaar ma too ma qaadatay sabab socoto waliba digital ID-ga waa in dambe waxa lagu xirayaa koonada bangiyada dhawaana waxa dhici doonta hadii adoo akoon kula bangi kamid ah bangiyada waddanka aanad ku xirin National ID-gaaga in aanad lacag la bixi karin lacag wareejin karin lacag aan lagu soo diri karin imikaba National ID-ga qaado bangigaagana ku xidha markaad hadasho tan iyo kuwa dambe nabadgelyo.